الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحو أنس كورينيا وهو أنس ليهي waxaa yarayd oo aad u yarayd inuu nabigu noo khudbeeyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo hadal noo jeediyo ilaa haday dhacdo kama tagi jirin hadalkan. muxuu yahay hadalka nabigu sallallahu alayhi wasallam khudbkiisa iyo hadalkiisa iyo markuu ummadda wax u jeedinayo u badnaan jiray? muxuu yahay? wuxuu leeyahay wuxuu nabigu ku celcelin jiray oo dhihi jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam la iimaana liman la amaanata lah. iimaan ma laha ruuxan amaano lahayn, wala diina liman la cahda lah. diinna ma laha ruuxa aan ballanka lahayn. waa arrin weyn. diintii waxaa loo diiday oo laga anfiyey oo laga xayuubiyey ruuxan ballan lahayn. cibaarada iyo hadalku siduu u yaalo bimacnaa diin oo dhan ma laha waaye. marba hadduusan ballan lahayn diin oo dhan ma leh. mar hadduusan ammaano lahaynna iimaan oo dhan ma leh. saasaa macnaha xadiidku u yaala. waa arrin cajiib ah. diintii waxaa laga dhigay inay tahay ballan la ilaaliyo iyo ammaanadoo la xifdiyo. iimaankii waxaa lagu koobay ammaanadoo la ilaaliyo. diintiina waxaa lagu koobay ballantoo la ilaaliyo. sidaas daraaddeed baa ibnulqayim calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay الدين كله عهد ووفاء. دين تدمانتد وبلن يفلنتي سوا. بلن آد ربي قال لك شيء أود فلينيس. يبلن آد الضومد إلهي لك شيء أود فلينيسو. دين توا أنت زوج. مركاتوس تفاصيل إرادة كبحي رحمة الله عليه. قرآن الكريم كامر كان نقرنه إسلام عنها سان كهلينا. الله تبارك وتعالى وحو إن أمري بلمها يهشي سيادة ألا وذا قليسان إلالية أو فلية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مؤمنين تيو فلية قنتمها آد قنتنيسان شروطاد وذا قليسان هشيسياداد وذا قليسان بلمها آد وذا قليسان فلية بو الله يري تبارك وتعالى. العقود وبمعنى العهود. الله تبارك وتعالى أمر كيسو وحو فائدة يا وجوب وحو أمر يانا مصلحة كجرت. أما مصلحة داسي خالصة آهات، أما مصلحة داسي راجحة آهات. sidoo kale rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inaga reebay ballamaha markii la galo jabintoodana waa inaga reebay. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay oo ina yidhi walaa tanqudu al-aymaana bacda tawkiidiha. ballamaha iyo heshiisyada iyo ittifaaqaadka iltizaamaadka ha jabinina markaad adkayseen kadib. dhaar ku adkayseen, qorateen, ku heshiiseen, ku kala tagteen, ay laazimtay ha jabinina buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala. allahna tabaaraka wa tacaala shay hadduu addoommadiisa ka reebo dhib ku jira darteed ayaa loo reebayaa. ama dhibkaasi ha noqdo khaalis ama raajix ha noqdo. ballamaha oofiya, jabintana ka ilaaliya. qur'aankiina saasuu ina farayaa. ballan rabbigeen baan la galay oo addoommadu la wada galeen oo waxay tahay inaynu isaga keligii caabudno
cibaadadiisa inaan cid kale la wadaajinin inaynu ateecnoon amarkiisa qaadanno sharcigiisa inaan iltizaamno wuxuu jecel yahay inaan ku dadaalno wuxuu neceb yahayna aynu iska ilaalino ka fogaano ballankaasi rabbi baynu la galnay tabaaraka wa tacaala allahna quraanka kariimka buu ku sajilay oo uu inoogu sheegay ballantaasi inuu inala galay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay aadam caruurtiisii in ilaahay soo ururiyay oo isu keenay oo aabbayaashood dabarkooda laga soo ururiyay sida nabigu xadiidkiisa ku sharxayo sallallahu alayhi wa alihi wasallam intaan wali la abuurin oo la keenin baa la isu keenay wallahu qaadirun ala kulli shay allahna waa awoodaa wax kasta markaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu markhaati geliyay alastu birabbikum buu ku yidhi warsoo rabbigiin ma ihi kulli waxa la isku raacay rabbigana tahay macnaheedu maxay tahay keligaa baana abuurtay waa qirsannahay adigaana maamulo waan qirsannahay adigaana leh waa qirsannahay adigaana arsaaqa waan qirsannahay waa keligaa adigaan ku caabudaynaa keligaa oo ku raacayna waa qirsannahay ballantaa ma qaadeen waa qaadnay ballantaasi aynu soo qaadnay oon rabbigeen ka qaadnay waa midda ilmuhu markuu dhalanayo uu ku dhalanayo waay ilmuhu ama waalidkii gaala ha ahaadeen ama waalidka dhalayay muslim ha ahaadeen asagoo ballantaa xusuusan oo qalbigiisa ay ku jirto hooyadii ka soo baxaya ma min mawludin illa yuladu ala alfitra bu nabigu sallallahu alayhi wasallam macnaha fitradu sidaas waa sidaas daraadeed labada waalid ayaa bedela oo fitradii ka haleeya oo kirishtan ka dhiga ama yahuudi ka dhiga ama majuusi ka dhiga hadday muslim yihiinna fitradii wanaagsaneedii uu ku dhashay bay ku barbaariyaan oo u xoojiyaan haddii fitradaasi aan la bedelin oo wax bedela aynan helin xataa hadduusan kitaab u imaanin oo rasuuluusan u imaanin wuu qirsan yahay inuu rabbi leeyahay rabbiga uu leeyahayna inuu kor jiro wuu qirsan yahay dadka aan diini gaadhin oo kitaab gaadhin oo afrika ku nool oo asia ku nool oo caalamka ku nool oo weligood kitaab ilaahay aan maqal rasuulu soo dirayna aan maqalin haddaad weydiiso yaa ku abuuray wuxuu ku leeyahay luqadiisu ku cabiraya allah baa yaa abuuray buu leeyahay xagee jira kor buu jira xagee ka timid waxay ka timid ballantii ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisu ay ka qaadeen ayaa lagu dhalanayaa oo la iimaanay adduunka marka la iimaanay qalbiga ku jirta ballantii rabbiga aad ka qaaday ma fulisay ma jabisay seed uga soo baxday allah tabaaraka wa tacaala ballantiisa markaad fuliso asaguna ballan buu ku qaado ku fulinaya reer bani israa'iil buu rabbi tabaaraka wa tacaala sida u sheegay اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ورنعمتي آردين كن نعمي reer bani israa'iil xusuusta وأوفوا بعهدي بلنتيدنا أوفية أوفلية أوفي بعهدكم أنا كنا بلنتان إدين قاضي بان إدين فولينيا الله بلن بو قاضي أدومدي سأو قاضي أدومدنا بلن بي قاضين وربي قد أقاضين بلنت ربي أد أقاضي وإن عابده وآذن أشريك يرين عاصيين وأضعضو الله نبلن وحكو قاضي هداد إنت كسو بحضو إنو جنكو جي عذابنا كائلالي بلنت فولي والغو فولي بلنت جبي ويجبنتهي هذا كرنا يمشاد مرله هذا جبي سو حق ربنا تبارك وتعالى وين قضى لأن شرط بيلاده أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بلنت أدو مدى صدوك إيش يثبت كشيء شركاتهين وحبات سكوكتهين وحبات كلا صحيحتين بلن بات سيسي وكوكلا تكتين وإن لازمتي وإن هذه الاليسو هذا دي لالي وإذا سوما دانتادو كاتوستو إنا تشبيسو meel ku dhantaad aragtay waad khayaantay dadkii baad uga baxday ballantii baad jabisay laa diina liman laa cahda lahu diin malihid imisaas xajka ku noqnoqonaysa oo cumrada ku noqnoqonaysa oo safka hore ku tukanaysa oo salaadiisu badan tahay oo sadaqadiisu badan tahay oo ballan aan loogu soo hagaagay meel aad u soo hagaagto male
قول ماله وحكو يراد وحكسوقات ماله وحي اللي قرطهي وحكسوقات مايو بلنت هدقتان ما غفينيو هاوي دينتي لا دين لمن لا عهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين ماله روحا بلن الله بلنت عدة لقليسو أما قال أنه أما مسلم أنه بلن وبلن حتى قال هداد بلن لك شوينة فلسو وأنا كيني دونا نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه معاملات كي وقالنا لما معاملون شري يسدوا بلنتبوا إلى لنشري تصاليال كم إذا يأمثل إنه كيني دونا بإذن الله تبارك وتعالى خطب كين رسول سينو أوغان دين تاني سوحا أيته سانو أوغان دين تاني يعبود إذا يضد كيرو سيئو إلى ليان قيمك إيه شرفك يوناك إلى ليان الله تبارك وتعالى بلنتي عهد قول إلى اليوم وحكو دري خير كدمانتي خصاشي سوكو دري ولكن البر من آمن بالله برقة إيا وناقة برقة وحل جماع الخير خير المشي يسوي ماذا برقة اللي هذا برقة الرميه سمركو ألا تيريني تبارك وتعالى وحيري والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أهل البرقة يصحاب البرقة بلنت مركي قلان ويوفيان سوسو وذي صفات كاموسية كدب وحيري أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كوا رنط الشيء كوا إلهي كبقنا وكوا سؤاله تبارك وتعالى بمعنى أداد بلنت آدم أو في إلهي كما بقدت الله تبارك وتعالى ولا لي الهنشبات أذك بوجهدي ذاتك بلمها انتي قلان شبيه ذاتك بلمها آن إلالين الله وأقودي تبارك وتعالى وحربي تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم كوا إلهي بلنت إلا قلان إيو بلمه يهشيسيدي أتكاعي وذقلان كوا إيبسانيا أو نافسانيا وحوغاء الدنيا ثمنا قليلا وقالوا كعبر اللعقير ثمن قليل أو في القرآن كعبر يا الدنيا دورنا اللي سجى يبقى اللعقير الدنيا دورنا اللي سجى يبقى قيمة كفرين إلهي أقدس تبارك وتعالى لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء كان عقرب كذا حتى أمرني كنتو سيداس درادي ثمنا قليلا ووحاد قيمة ير ومرنا قرآن كعبر متاع أراب قيمة اللي توا وحوغاء الدنيا أبو بلنتي وقبحي كرسي أبو داف صدي حوغاء شريمة أبو داف صدي مقع أبو داف صدي مصلوح ميلك أركو داف صدي بلنتي بودتك وقبحوا كخيامي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ذاتك النوع عاسي الله وحول أولئك لا خلاق لهم وحن نصيبه يدف أمرها آخر وحبك مرها وريا واعدا آخر وحبك لها وقالوا مسلم كسكة عاسي وويه مربع دو توحيد يا إيمان كل انتو آخر وحنو بكلي لكن يا واعدا آخر وحبك لها لا خلاق لهم وقالوا قال أنا آخر وحبك لها الله وحده تبارك وتعالى ولا يكلمهم الله إلهي الله اللي ما يمارس قيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ألا فيرين ما يضدك النوع سئلنا حريزتون دي مايو ولا يزكيهم ألا الظاهرين مايو قدام بدافي مايو ضدك اللودم بدافي يكم الجيران ولهم عذاب أليم وحين ليهن عذاب حموجيا بلو في الصدر ديف آخركم الله إلهي الله اللي مايو إلنا حريسات قدام مايو ظاهرين مايو قدام بدافي مايو عذاب حموم بدن بيليه يا واي الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا كوا بلنت إلهي لك له تي أضومر أي لك له شبينيا وحوقانا دابسنيا وحوقا كويب سنيا الدنيا سيداس درادي دولا لي الدين تاني ودين العهد ضدك يدون أهل الوفاء بالعهود بلنت أدقليس ضدك لك قليس إلالي أساقو أوك إنوسن أوفينين
oo ku talagashan yahay inuusan oofinaynin buu saxiixaya talagalkiisuna waxa weeye inuu ka baxo asagoo og inuusan fulinaynin buu haddana galayaa waaba ku talagashan yahay marka horeba uu ku talagashan yahay inuusan iltizaamin oo uusan ku soconin war magaal baa tahay war dhaqankaasi xagee yaalla war noocee u yaalla war miyaadan muslim ahayn war miyaadan qur-aanka raacsanayn war miyaadan nebi maxamed rumaysnayn war miyaadan ogeyn cahdiga iyo ballanku inuu adag yahay gaar ahaan waxaa u daran bini aadamka marka ilaahay u nimceeyo tujaarta iyo ganacsatada dhaqaalaha leh in yaroo ilaahay u naxariista mooye badankood ballan ma leh madaxda iyo dadka kursiga ku fadhiyay inta badan in yaroo ilaahay u naxariista mooye ballan ma leh qowla ma leh isdhaafi waaye war haddaadan ballantan iltizaamin ha gelin qowlkan haddaadan ku soconin ha gelin saxiixan haddaadan fulinaynin ha gelin haddaad gashana ilaali duruufta waxay dooni ha ahaato wixii dooni ha ku haysto xaaladdu ha ahaato laazim haddaadan iltizaamaynin dadkii aad ballanta la gashay ku noqo sidii aad hawshii u farsamayn lahaydeen ayaga dib ugu laabo laakiin dhankaaga inaad ka jabiso saa doontana aad yeesho laa للحديث بقية وفي المزادة مزيد وصلوا عليه وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك